بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 210 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي والبيهقي، والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 8 bishii 9aad Ramadaan sanadka 1444, isla markaana waafaqsan 30 bishii 3aad sanadka 2023. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray al-muntakhabu min saxiixi sunna nabawiya, qaybtiisii 2 Ramadaan iyo fadaaishiisa iyo axkaamtiisa ayaanu muddo dheer falanqeynaynay. waxaan hadda taqriiban ilaa 5 xadiis aan soo qaadanay. baab aan ugu magac daray munaasabada ramadaanka aan ugu magac daray tajdiidul iimaani fi lquluub, cusboonaysiinta iimaanka la cusboonaysiinayo quluubta dhexda lagu cusboonaysiinayo. marka waxaanu leenahay xadiidkan waa kii 6aad weeyaan. waxaanu leenahay marka cinwaankiisu kii hore muu la socdaa: min asbaabi tajdiidil iimaani ijtinaabu maxaarim illaahi wamtithaalu awaamirihi والرضا بقسمة الخالق والإحسان إلى الجار. waxaanu leenahay waxyaabaha iimaanka cusboonaysiiya waxaa ka mid a maxaarimta ilaahi, ijtinaabu maxaarimillaahi, maxaarimta ilaahay oo qofka iyo muxaramaadka qofku ka fogaado, iyo wamtithaalu awaamirihi, awaamirtiisa oo qofku fartoomo uu la yimaado, iyo waridaa biqismati alkhaaliqi, iyo inuu qofku ku raadi noqdo allaha khaaliqa qismadiisa iyo wuxuu qayb ahaan uu u siiyey, iyo ixsaan jiiraanka wanaag loo sameeyo. intaasoo dhanba waxay ka mid yihiin waxyaabaha iimaanka cusboonaysiiya oo kobciya ayay ka mid yihiin. marka cinwaanka kaasaan ka dhigaynaa oon maaragtay aanu leenahay asbaabaha ayay ka mid yihiin. xadiidkan ikhwati fillaahi waxaa soo saara alimaam tirmidi kitaabkiisa sunanka, sidoo kale alimaam axmed musnadkiisa, sidoo kale alimaam bayhaqi fi sunan kubraa. xadiidku waa xadiid xasana, wain kaana dacfi uu ku jiro, culimmadu ay ka hadleen asbaabaha looga hadlay oo qaarkood ay dacfi u geliyeenna waxaa weeye abu hureyre saxaabiga ka warin, abu hureyre oo saxaabi ah taabiciga ka warinaya xasanulbasri weeye. saa darteed culimmadu waxay leeyihiin qaar ka mid a xasanulbasri lam yasmac min abi hureyra, abu hureyre waxba kamuusa maqal. marka laakiin xadiidku waa xadiid xasana, rag badanna way soo dhoweyn. imaam sheekh albani waa ka mid a raxmatullaahi calayhi, kitaabkii saxiix jaamic sagiir iyo sunan tirmidi iyo maaragtay saxiix targhiib wa tarhiib, intuba xasan buu kaga dhigahayaa, intuba xasan ayuu kaga dhigahayaa. intaa markaan xadiidka ka gudubno, xadiidkan wuxuu xumbaarsan yahay 5 wasiyo, 5 dardaaran buu xadiidkan xumbaarsan yahay. wasiyaadka iyo rasuulka dardaarankiisa ummadiisa u dardaarmayo anwaac iyo noocyo kala bedelan bay ahaan. qof kastaba maaragtay duruufta ama xaaladiisuu nabigu fiirin jiray. mararka qaarkoodna isagoon cidino wax weydiinin ayuu usoo bandhigi jiray saxaabatu rasuulillah. 5 wasiyo iyo 5 dardaaran ayuu nabigu halkan ayuu bixiyey. xaqiiqatan 5taa markaa fiirisina islaamkii o dhan baa ku idil, islaamkii o dhan ayaa ku idil. abu hureyre wuxuu leeyahy radiallahu, marka qof kastoo 5tan arrimood intee in leeg baad ku dhaqantaa, inteese dhexdaada ay ka muuqataa arrintan, bal qof kastoo miisaanka dib iskugu saar. abu hureyre wuxuu leeyahy radiallahu tacaala canhu waardaa, rasuulka wuxuu yidhi maalmaha ka mid a: man yaakhudhu yaa qaadanaya, man yaakhudhu yaa ka qaadi, yaa maaragtay yaa ka qaadanhaya, ama man keebaa yaakhudhu qaadahaya canii xaggayga haaulaa'i ilkelimaati, kelimaadkan iyo warkan soo socda iyo hadaladaydan
واكي قفك إيقا قاضهيا وفيعمل بهن كعمل فلي أو يعلم برهيا من يعمل بهن قفك عمل فلهيا برهيا أوضا بمعنى واويان ولو ما تشيدو قف أساقا كعمل فلا أما هدوسا كعمل فلينين عيد كعمل فليس برهيا لو ما تشيدا سيداس وحلو تشيدا من يأخذ يا قاضي عني حقيقة هؤلاء الكلمات كلمات كانوا كوانا يا إيغا قاضي وفيعمل بهن كعمل فلي ويعلم فيعمل بهن كعمل فلي ويعلم برهينا من يعمل بهن أساقنا فهام بكعمل فلي وصالحي ويان سوء في عناده مصلحنا إنه النقضة غير كي كوها جاتيال ربا ويعلم برهيا من يعمل بهن واكي نينكا إيغا قاضي أساق نفتيسا كعمل فلي دادكي كلانا أسي قدبين هيا وبرهيا سوى عمل فلان فقال أبو هريرة وحولي فقلت وحاني أنا يا رسول الله رسولك إلهي وأنا كاقاضي ونفتي إذا كعمل فلي دادك كلانا أقدبين هيا halka waxa laga qaadan bay culimadu dhaheen mas'uuliyad buu nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu saaraya inuu keligii nabigu u soo gudbinaynin ninka kelimadan iga qaadayo dadkana u sii gudbin way intuu asagu ku dhaqmo dadkana u sii gudbinaya waa mas'uuliyad bay markaa ku tusinaysaa halkaas uu qaadayo Abu Hurayra markaa wuxuu yiri aniga ayaa maartay rasuul Allah aniga ayaa qaadaya فأخذ مركا واقبت رسولك بيدي قعنت إذو قبتي بول فعد وحوتري 5 شن أرمود أيو نبي تريي وشنتا وصية صوص عتوي قف كستو مسلم وشنتا أرمود بلدي بسغفيري وقال رسولك نوحيلي أبو هريرة واتق المحارم محرمات كإلهي وكاحرمي كفقو وإسكا إلالي تكون وحان نقونيسا أعبد الناس من أعبد الناس dadka kuwooda ugu cibaado badan shakhsiga ugu cibaado badan ee lambar awal ma noqonaysa kuwa ugu cibaado badan baad ka mid noqon way marka marka takun waxaad noqonaysaa a'bad an-naasi min a'bad an-naasi dadka kan ugu cibaado badan kuwa ugu cibaado badan baad ka mid noqonaysaa yani maxaarimtii waxyaabaha ilaahay ka xarimay ka fogow warda raadi noqo bima qasama Allahu laka Allah wuxuu qayb ahaan ku siiyay ku raadi noqo oo ku qanac تكون waxaad noqonaysaa aqna an-naasi min aqna an-naasi dadka kuwooda ugu qanisan baad kamid noqonaysaa tasaddaxaadna waa ahsan wanaag u samee ila jaarika jiiraankaadana wanaag u samee muslimi gaal waxay doonaan ha ahaadeen takun waxaad noqonaysaa mu'min xaqiiqi ah oo iimaankiisa uu kaamil yahay baad noqonaysaa kaafraadna waa xibba la jeclow linnaasi dadka ma tuxibu waxaad la jeceshahay linafsik wax kastoo khayrood naftaada la jeceshahay dadkana kula jeclow takun waxaad noqonaysaa مسلم إسلام نمت كيسو كامل يهي كأودن بيس والنبي وحولي ولا تكثر الضحك قصلك هبضن فإن كثرة الضحك قصلك فرها بضن تميت القلب قلبك أي الدشاء إخوتي في الله حديث كان حديث عمق جيسة ما ارتسل كيسة لقاري كرموه حديث عظيمة ويانو وشان جملو أما شان ما ارتخصلو شان خسلو النبي وماشان كل شيء oo mid kastaba u baahan sharax dheer u baahan markaan soo ururino nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri wariyaashantan maarta arrimahan soo socdaya iga qaadi oo naftiisa ku amal fali dadkana u gudbinaya Abu Hurayra marka gacanta u taagay oo yiri ballan galay waa ballan weeyaan marka Abu Hurayra ballanta ahadi weey oo nabiga la galay oo mubaayaca weey marka nabiga gacantu i qabtay buu shan arrimoodna waa tiriyay markaas wuxuu yiri mid koobaad محارمت كفقو محرماتك إلهي كحرمه أو قول إيا فعل إيا اعتقاد حداد كفقاتي وحاد نقون إسادتك كوة أو عبادة بدنبات كمين نقون الكاب علماء وحيليهن دينتو واوح ماركتي اللغار ريبي أو لوير هو دوانين إيوح لوير السماء إذن محرماتك فقان شهودة وحيد من السنة إسا أو كاللازمي واجباتك نذتمات لأنه قف أنا واجباتك لا إيمان المحرماتك موسى فقان suurtagal ma inaad tiraad muharramaad baan ka fogaan waajibaadkeena la iman maayo xayale kownuka aad waajibki ka tagtay muharram baad ku dhacday idan tarkul muharramaat maartay yastalzim wuxuu laazimsanaya imtithaalu al-awaamir marka ityaanu al-faraa'id iyo waajibaadku inuu qofku la yimaado idan kownuka aad wixii ilaahay ka xarimay aad ka fogaatay isla markaana wixii ilaahay uu kugu waajibeeyna waad la imanaysaa hadii kale kuma sifoobaysa إذن وحيابها محرمات كإلهي كحرم هدات كفوقاتي
waajibka ilaahay ku saarayna aad la timaadi dadka kuwooda ugu cibaado badan baad noqonaysa. dhammaanteen waxaan raadinaynana waa midaas wey. marka inaan min acbadi naas inaan noqono. qaybta labaad wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, idan mar haddaad noqotay dadka kuwa ugu cibaado badan, haddii iimaankaadi waa kobcay, qof iimaankiisa kobcay oo iimaankiisa cusboonyaa tahay. maxaa yeele muxaramaadkoo laga fogaado waxay maaragtay kobcinaysaa ama cusboonaysiinaysaa iimaanka. wixii wasakoo fuulay iyo macaasidii iyo wixii oo dhan bay ka dhaqaysaa. muxaramaadkood ka fogaatay iyo faraa'idkii aad la timid, iimaanka ayay markaa ziyaadinaysaa oo maaragtay kobcinaysaa. ka labaad wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qismahaan kuu siiyey ku raadli noqo oo ha u hanqaltaagin waxaana ilaahay kuu qorin oo dad kale gacmahooda ku jira. ha u hanqaltaagin xoogaaga ilaahay uu kuu qadaray, taas qismadaa ilaahay ku raadli noqo. midaasoo lagu raadli noqdayna waxaad noqonaysaa min aqni naasi. takun aqnana min aqnina, dadka kuwooda ugu qanisan ayaad ka mid noqonaysa. leanna qaninimadku waa qanaacada qalbiga, laakiin wax la tiriye lagama dhergo. yacni xisi ahaan xoolo la tiriye lagama dherge, qalbigaa laga dhergaa. qalbigu hadduu qofku ka qanco, tusaale ahaan shay cuntaa lagu siiyey, weelkii baa laguu buuxiyey, ama weel weyn baa wax lagugu keenay, yacni markaas indheha aad ku aragtay baad waxaad ku qanacday shaygan intuu ku deeqo inuu haddana kaaba soo hadhiba, ooda keligaa aada maaragtay dhammayn karinba. olready markaa qanaacaad qaadanaysa. markaa kulaylkii iyo gaajadii iyo wixii ku hayoo dhan way kaa tegi. limaada? lianna waxaan lagu keenay maxaad aaminsantahay indhahaadu ay ku aragtay inuu kaa badan yahay. idan qalbigii baad ka qanci, markaa qalbi ahaan baad ka dhargaysaa. idan wixii ilaahay ku siiyey haddaad ku qanacdi, dadka kuwooda ugu maalqabaysan baad noqonaysaa. dhibka wuxuu ka dhacay waa wixii ilaahay ku siiyey baan lagu qanacsanayn. in badanoo ka mid a dadka kuma qanacsado. tuuganimadku waxay u dhacayso, burburka hadda laisku samaynaya oo dowladaha loogu duuli iyo qabaa'isha isugu duulahayaan, iyo burburka laisugu samayn, dhaca iyo dulmiga laisugu samayn. in badan baana waxayna ku qanacsanayn wixii ilaahay siiyey. waxay u hanqaltaagahayaan maaragta ummad kale ilaahay wax uu siiyey khayr uu siiyey bay u hanqaltaagi, oo waxay leeyihiin ilaahay waxaan adisay iguma fillo, marka waa inaa wax kala doontaa. marka dhac iyo burbur marka iyo maaragta hantiboob iyo dulmi ayaa imanhaya. waxaana asal u ah cadamulqanaaca, oose qofku wixii ku qanacsanayn. qodobka saddexaad, marka taa ood ku qanacdina waxay noqonaysaa iimaaniyaadkaadii kobcinaysaa. inuu ilaahay qismadiisa wixii ku siiyey aad ku qanacdi oo waxyaabaha iimaanka cusboonaysiiya ka mid tahay. qodobka saddexaad wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waaxsin ilaa jaarika takun mu'mina. jiiraankaada wanaag u samee. ixsaan ila aljiwaar waxa weeyaan waxay ka mid tahay maaragtay usuusha shareecadeennu ay amartay oo aad iyo aad u rakistay bay ka mid tahay. jiiraanka wanaag loo sameeyo. takun mu'minan baa le, mu'min xaqiiqo oo kaamiluliimaan baad noqonaysa. iimaankiisu miduu kaamil yahay. kamaaluliimaan baa lagu gaadhaa. kamaaluliimaan hadda waxaa weeyaan shayga lagu gaadhay waa wax kobcinaya, iimaankaadii cusboonaysiinaya, kobcinaya wey. iimaan macaasi dishay oo manaaqisa kaamil ma noqdo. yacni waa kaamil lama yidhaahdo, laakiin iimaanka macaasida laga ilaaliyey kaa weeyaan midka kobcaya. marka mu'minan baad noqon. macnaheedu ma hadda jiiraankaada wanaag u samayn inaad gaaloobaysa, ee naaqisul iimaan baad noqonaysa. kamaalul iimaanna ma gaadhaysa. qodobka afraad, waa axiba linnaasi maa tuxibu linafsika takun musliman. dadka wax kastoo khayra oo naftaada la jeceshahay dadkana la jeclow. wax ogow laguma dhihin si keli ah, waa wax bini aadamka ugu daran baa laleeyahay. aan adigu inaad siisay lagaama dalbin. keliya la jeclow inay dadka kale ee walaalahaada muslimiinta wax kastoo khayr oo naftaada la jeceshahay inay ayagana ay helaan la jeclow. tiibaa bini aadamka laga kari laaya inuu la jeclaado walaalkiisa muslimka waxa khayr asagu jecel yahay inuu la jeclaado ma ogolo. bal wuxuu doonay khayrka inuu keli illa man raxima rabbuna mooyaan inuu keligii khayrka la khaas noqdo jecel yahay, oon ciduna la soo gaarin ummadda kale oo dhanna ka hooseeyaan ayuu jecel yahay. wa rabbul caalamiin baa bixiya khayrka, risqiga asagaa bixiya, darajada asagaa bixiya, wanaagga asagaa bixiya. adu bixi laguma leh. keliya qalbigaada oga maartay ka aqbal inuu walaalkaada muslimka khayrka jeceshahay inuu asna uu helo. qalbiga kala jeclow baa la jeclow baa waxaad noqonaysaa muslim dhaba oo islaamnimadkiisu uu kaamil yahay, kaamilul islaam. marka kamaalul islaam waxaa lagu gaadhaa inaad dadka kale la jeclaati wixii naftaada aad la jeceshahay. qodobka kale u dambeeya wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam,
qosolka ha badinin maxaa yeele qosolka faraha badan qalbiga ayuu dilhayaa. qosolku laba qaybood wey, mid dhoola caddaynoo muusood la yidhaahdo oo qofku dhoola caddeeyo wax sawdi waxba dhawaaqaan lahayn, kaas waa shay bannaan wey, dhibna ma leh. ka la diidan yahay ee qalbiga dilhaya waa ka dhawaaqa oo qofku rag iyo dumar wuxuu doona ha ado laga soo maqlahaya, xagga bannaanka laga soo maqli, dhawaaqiisa qaqaqaq uu ku dhufanhayo oo meel laga soo maqlahayo, kaa weeye midka qalbiga dila. qalbigu hadduu dhintana hadde jidhkii oo dhan eber weeyaan. wa ina fi ljasadi mudqa maaragtay idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasada fasada aljasadu kulluhu, yani alaa wahya alqalbu. yani jidhka waxaa ku jira mudqa, cad hiliba, hadday wanaagsanaato jidhka oo dhan iyo qofku wuu fiicnaan, hadduu hallaabana wuu wada hallaabi. waxaa weeyaan waa qalbiga weeye. idan qalbiga waxaa dila macaasida. idan qosolka faraha badan ee dhawaaqaana waa macaasi wey. idan waxyaabaha quluubta disha waxaa ka mid a macaasida. waxyaabaha quluubta nooleeya oo iimaaniyaadka kor u qaadana daacada ilaahay baa ka mid a. idan ikhwati fillah, xadiidkaas xaqiiqatan xadiid aad oo maarata cumqigiisu u dheer yahay weeyaan, macaani badanna ku fadhiyo. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa ilxusnaa wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa wasaayaadka nabiga qaatay oo naftooda ku camal falay, ummaddana u gudbisa, sida abu hureyre u ballan qaaday oo yidhi rasuul allow anaa qaadahaya oo ku camal falahaya, ummaddana u gudbinahaya, inaa maarata qof kasta uu mas-uul iska saaro, naftiisa marka hore uu ku dabaqo oo ku islaaxiyo oo ku hagaajiyo, kadibna markaa uu ummadda kalena u gudbiyo si uu laba ajir u helo. ajirkii asagoo uu ku camal falay iyo ajru tabliiqi, gudbintii uu dadki barahayey. ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusan uuna irsaaqa xaqa raacitaankiisa. hal mar baa xadiidka lafdigiisa aan akrinaya. alxadiiثu 210 الحديث 210 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحديث حسن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.